بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسنا ودرسك السديدات كم إذا دروس كتابك متن الغاية والتقريب أبو شجاع للقاضي أبو حسين أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله وحنكب الله بين مانتي فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء هل كاسكب الله بينا waxaan ku guda jirnaa wali salaada waa darsigii labaad marka la fiiriyo xagga salaada waa darsigii labaad mar haddii aad soo baratay salaada waqtiga la tukado waqtiga ay soo gasho salaadaha waajibka salaadaha sunnada inta haddaad soo baratay wadaadka halkan wuxuu ku guda gelayaa shuruuda salaada waxay leedahay shuruud shuruudana wuxuu kala qaadi doonaa labo qayb kamida waxay shardi u tahay inta aan salaada la gelin qayb kamida shuruuda salaada marka qaybtaas way qaybtu hadda ka hadlayo wuxuu yiri wa sharaa'itu salaati salaada shuruudaheeda qabla dukhuli fiha inta aan la gelin ka hor 5 أشياء 5 شيء وي waxaan soo marnay shuruuda qayb kamida waa soo marnay Soomahan waxaan ku soo marnay markuu wadaad ku dhahay wa sharaa'idu wujubi salaati 3 أشياء laba shardi waay marka midna waxa weeye yaa laga rabaa salaad waa mid ka hor soo dhigan salaad yaa laga rabaa waxaan niri qofka salaada laga rabaa inuu yahay muslim baalig oo عاقل صح saddexdaas qofka laga helo saddexdii shardi buu hadda mid kan oo halkan ka galana waxa weey qofkeeba salaada marka uu tukado la dhigi karaa salaad way ka ansaxday xagga shuruuda marka la fiiriyo salaad waa tukatay yaa la dhigi karaa qofka shuruudan shanta laga helo baa la dhigi karaa salaad waa tukatay ما لا فهمي لبدا شرط ما لا كلا فهمي شرطك كوباد marka waxa weey طهارة الأعضاء jirkaaga inuu طاهر yahay jirkaaga طاهر ahaanshihiisa xubnahaaga طاهر ahaanshahooda baa la shardiyaa oo min الحدث والنجس ay shart ay طاهر ka yihiin oo ay nadiif ka yihiin حدث iyo najaaso حدثka hora u soo martay waa kitaabka waa anay kitaab طهارة soo dhameyn حدثka wadaadka laba u qaybiyay حدث أكبر iyo حدث أصغر marka la fududeeyo waxa weey حدث أصغر waa markaad u baahan tahay inaad weesaysato weesadii baa ka jabtay حدث أصغر حدث أكبرنا ومركاد وباهنتها قبيس وآذن تكن كرينات قبيس تدمويه إذن لبدا وإنات كلين كته حدث وإنات كلين كته سكلا هدي لو يراهدو صلاة الدار تينا تكتو وإنا وسقبتو قبيسنا آذن وباهنين تاوى حدثك ومدا wuxuu ku yiri najaasada waa kaadida iyo saxarada oo kale jirkaagu waa inaysan najaaso ku oolin marka iyada haday najaaso ku soo gaartana waa inaad iska nadiifiso marka iyada waxa laga helaa shardiga koobaad waad soo buuxis qofka waa weesa qaba qubays waajib kuma aha dhinaca kalena najaaso jirkiisa kuma taalo waxaad buuxisay shardiga koobaad waa laga helay shardiga labaad waa maxay wadaadku wuxuu yiri wasatrul awra awrada in la asturo oo la qariyo awrada in lagu qariyo bilibaasin dharkaas oo taahir ah inaad awrada qariso asturto oo marka iyada aad ku asurto dhar daahir ah
waa shardi weeyaan. cawro maxaa la yiraahdaa halkee cawro ah wadaadka isaga noo keenaya Soomaalidu waxay tiraahdaa minhaaj lama xanto waa soo socda marka cawrada ragga waxba cawro ah meelaha laga rabaa inay qariyaan oo ay asturaan dumarkana meelaha laga rabaa iyagana cawradooda inay kala duwan tahay waa arki doonaa waxba cawro ah raggana waxba cawro ah inay kala duwan tahay waa arki doonaa waan u tageynaa kitaabka isaga wadaadka keeni doono laakiin waxaad ogaataa guud ahaan qofka inuu markuu tukanayo shardi ay tahay inuu jirkiisa asturo uu qariyo cawradiisa inaysan muuqanin waa shardi ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu ku yiri khuduu ziinatakum cinda kulli masjid nabigana sallallahu alayhi wa sallam xadiidka Caaisha waaki uu yiri لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار gabadha xaydada gabadha qaangaartay macnaha qaangaarka marka ay tukanayso salaadeeda la aqbali maayo illa inay qamaar xirata mooyee macnaha inay is asturta mooyee salaadeedu ansixi mayso idan shardiga labaad waa inaad asturto cawradaada qariso shardiga saddexaad wal wuquufu waa inaad isku taagto ku tukanayso ala makaanin meeshaasoo taahirin taahir ah meesha aad ku tukanayso waa inay nadiif tahay meel nadiif oo taahira waa inay tahay haddii ka waran sijaayad aad ku tukanayso sijaayadda hoosteedana ay najaaso tahay laakiin najaasadaas ay qalashay shardigaanu ma ku saxan yahay ma ku tukatay meel oo taahira waa ku tukatay laana adiga waxa ku tukanaysaa sijaayada waxa ka hooseeya haduusan qoyanin waxba kaama gelin laakiin haduu qoyan yahay sijaayada maxay noqonaysaa marka iyada meeshay ku taagneed baa najaaso ah oo qoyan sijaayada maxay noqonay najaasa marka iyada kuma tukan kartid marka laguma tukan karo waa shardiga afraad wal wuquuf ala makan taahir meelan taahir ah in laguma tukan karo masaajidda ilaahi subhanahu wa ta'ala ilaahi tahiray qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaaha waka meel taahira waa in lagu tukado shardiga afraad waa maxay waa al-ilmu bidukhul al-waqt waqtiga soo gelidiisa inaad garanayso ogtahay waqtiga inuu soo galay salaad baad sugaysa waqtigeedii waqtigi waa la gaaray waa la socotaa waxaad ku ogaatay imma waa la aadaamay aadaankii baa maqashay imma calaamadihii salaadaha ay ku soo galayeen oo aan ku soo marnay kitaabka bilowgiisa kitaabu salaah baan u jeeday baad aragtay marka iyada waa al-ilmu bidukhul al-waqt maya ka dhaho waxa laga yaabaa waa lagu sheegayba adu maadan arag laakiin waxa lagu yiri xilliga waa soo galay gabalku waa dhacay waa tukanaynaa ama waxaad haysataa saacad baad fiirisay xilligaad ogeyd waxaad ogeyd marka la gaaro 10 o'clock in la gaarayo salaada cisha saacadaad fiirsatay 10kii baa la gaaray wax kale ma sugaysid horaa ka tukanaysa wal ilmu bidukhul al-waqt shardiga afraad way shardigaana waa in laga helo hadii laakiin salaada xilligeedii ayadoo la gaarin aad tukato macnaha salaadaasu shardi baa ka maqan waa jaban tahay salaad sax ma waxa lagu leeyahay ku celi shardigeedii lama gaarine hadii ka waran aadaankaad maqashay salaada fajr marmarka qaar Soomaaliya waxa dhacda
imaamka aadaamaya salaada fajarka inuu habeen barkii inta soo kaco midnight inuu inta soo kaco salalo masaajidka soo aado is yiraahdo alla ilaahay waxa la joogaa xilliga salaada fajarka aadaan oo marka aadaanka uu ku dhufto Allahu akbar adigoo gurigaaga jooga marka aad maqasho xagga adigoo fiirinna aad gurigaada ku tukanay salaadii aad tukato salaada ma ka ansaxday waa maya maxaa yeelay waqtigeedii lama gaarin wali al-ilmu bi dukhul al-waqt nacam ibraahim hadii lagu sheego wrong time adiga iyo ku sheegaba waa qaldantiin adiga waxa laga rabay inaad ijtihaado Soomaa inaad dadaasho laga rabay ina warqada saacada fiirisa laga rabay inaad masaajidka timaada laga rabay intii oo dhan maadan sameeynin aadaankaad maqasho waa la boode horaa ka tukatay idan marka iyada waxa laga rabaa salaadaadi waa ilaahay kuma samata diide waa ku celinaysaa way shardiga u dambeeya shanaad wastiqbaalul qiblada oo la qaabilo qiblada oo loo jeesado oo loo tukado dhinaca qiblada waa shardi weeyaan waana shardiga shanaad way wadaadku wuxuu yiri way juusu waxa banaan tarkul qiblada ka tagideeda في حالتين لبا حالدود dhexdooda ayay ku banaan tahay in qiblada in la qaabilo laga tagi karo salaad ba tukanaysa qibladana ma qaabilaysid oo ma jeesanaysid laba xaaladood marka laga helo xaaladda koobaad wuxuu ku yiri fi shiddati al-khawf cabsi daran baa jirta dagaal baa jira iyo qeyrkiis dagaal kaliya ma aha dab baa kacay biya maxalida daadad baa jira oo laga cabsanaya oo laga cabsi qabaa inay soo gaaraan meesha joogto wahalu majarayo wixii lamida ونحو ذلك في شدة الخوف متك كوبات متك لبعض نوعه في النافلة قف صلاة سنة تكنية أو في سفر كل حجرة أو سنة تكنية على الراحلة جديد نصارا قارب بساري دوم بساري مركب بساري ديارة بساري صلاة تكنية نوام محي وسنة أسقنا محوك جرا سفر صدق هذا وحيابات قف كلا جاي ليوي ومركب كوبات جديد بساري سفر بوك جرا لنا عكلنا صلاة تكنية وسنة صدق على مركب لجال قصبكم أهن إنه أجل سنة عقب لذا قصبكم أهن قبل هذه هدادا جريني ماشي كاجر تمحا سمينيسا وادداليسا ماشي كلنا قطان أتكنيسا هديك ورا مال قلدان أدو تكتي أدو ددالي مال خلدان بأدو تكتي لنا قلدان مركا كبح ذيبانا لقوش شاكي صلاة دا صحيحة كمانا سوعينيسي صلاة دا سواكات عادي كمانا سوعينيسي أدو صلاة دي كجيرو لنا عام بأدو تكنيسي صار رقعادي كوباد مركا لما يسي دور بأدو تكنيسي رقعادي كوباد مركا لما يسي بأوحاد استري الله إلهي قبلة لنا عن كامل جرتا لنا عن كامل جرتا وأوجه ستحقق صلاة الحديث ذا كو اجتهادي وقو لنا عن أوجه ست هذا نحوغا مركا وضي رقعادي لباط لما يساوي حاتري أمان قلدنا قدال بأوجه ست لنا عن بأوجه ست هذا مركا هذا رقعادي سدحات مركا لما يستي أفراد بعد لنا أفراد هذا أوجه ست لنا عكالي بأوجه ست صلاة سداسة كل ما يسي كورا كل ذلك هدوية اجتهاد صلاة هذا صحيح معناه اجتهاد لكن ماشي أكو اجتهاد سواء إنه بشرط ميلا مساجد هين مساجد وينو سنهين ماشي ميل بنا وإنه تهي دول هذا قوانين وإنه تهي مركا تكتي لكن دول لا يقانو مسلمين تي أيواه ركو اجتهادين ولو يذكر راعي إنه قبلة دينا عاجرتو وحكروا عصبنا آذن هين هذا ترى هذا أنا اجتهاد يا هذا وحلا إمهانة يا قبل عصب وحلو لي لقى مية لي وكذي لقى يلي مهي مركا
qiblada waxay ku banaan tahay ijtihaad markaadan garanaynin haddaad aragto qof qibladii meel qaldan u tukanaya dhinac qaldan u tukanaya maxaa samaynaysaa laba midba waa samayn kartaa waxaad samayn kartaa midda koobaad weeye inaad qofkii la hadasho tiraado qiblada dhinaca ma ahana waa bidixdaada bidix u jeeso qof tukanaya ma lala hadli karaa waa lala hadli karaa wax dhibana ma laha dhinaca kale waxaa kaloo samayn kartaa inaad intaad qabato qofkii leexiso oo dhinaca qiblada u jeediso oo sidaa uu tukado maxamed haye fadal sunno waa qasab nacam okay salaada waajibka haddii ay tahay markaa iyada gaadiidka aad saaran tahay haddii uu yahay doon iyo markab iyo diyaarad kuwa iyagaa looma shardiyo qiblada in la qaabilo waajibka haddaadan degi karin laakiin gaadiidka aad saaran tahay haddaad ka degi kartid haddaadba degi karto waajibka markaa iyadaa ku tukan maysid waajib ku tukan maysid nacam zakariya for example, if I'm outside and there's the sun, even day or night, how do I know where the qibla is? Like, is there a way that I can find out? hadda waxaa la isticmaalaa baalkan compaska la isticmaalaa haddii kalena badanaa waxaa weeye meesha aad joogto qoraxda meesha ka soo baxday meesha loo tukado baad fiirsanaysaa hadhow haddaad safartana sidii ku soconaysaa inta badan intaa magaalada joogto sidaasay ku soconaysaa marka shantaa waxyaabood baa shardiya salaada marka la tukanayo haddaan shantii kuugu celiyo marka koobaad jirkaaga inuu daahir yahay oo xadath iyo najaaso uu daahir ka yahay midka labaad cawrada inaad asturto qariso kuna qariso dhar daahir ah waa midka labaad ka saddexaad meesha aad ku tukanayso waa inay tahay daahir afaraad waa inaad og tahay salaada waqtigeedii inuu soo galo waqtigii la gaaray ugu dambeynna qiblada waa inaad qaabisho qiblada oo dhinaca qiblada aad u jeesataa faslun halkaa wuxuu uga baxay marka shuruudii wuxuu halkan ka gelayaa wadaadka arkaanta salaada arkaanteeda wuxuu yidhi faslun aadaakanu faasilun wey wa arkaanu salaati salaada arkaanteeda 18 ruknan 18 rukni weeye 18 rukni 18 tiir bay salaadu leedahay haye meeqa pillars bay salaadu leedahay 18 ka ila socda midka koobaad wadaadku wuxuu yiri aniya waa inaad niyeysato salaadii marka aad tukanayso waa inaad niyeysato salaada waxa ay tahay salaada tukanaysa waajiba niyada ku qabanaysa salaada in waqtigeedii uu joogo aad ay tahay qada ahayn waqtiga niyada ku qabanaysa niyadii ma waxa la sheegayaa oo ma la dhahayaa maxaa la yiraahdaa ilaahu waxaan tukanayaa salaad duhur oo 4 ragca oo waqtigeedii la joogo la sara ku tukanayo markaas tawxiid imaamkan ku daba tukanayana waa maxamed ilaahu wallahu akbar ma la dhahayaa la dhihi maayo waxa soo dhanba looma baahna haddaad ba niyada ku qabato waxa kugu filan inaad sidaa ku tukato wadaada yiri inta hadda tirinayo waa loo baahan yahay in la yimaado sababkana waxay yiraahdeen carabka iyo qalbiga say isku saacidaan oo macnaha wixii qalbiga ku jiray iyo wixii carabka ku jiray wixii carabka ka tiri marka iyada ay iswaafaqaan niyada maxaa ku haysay inaad salaad duhur tukato intii baad afka ka tiri laakiin mar walba sidaa sax ma aha marmarka qaar waxa dhaco waxaad qalbiga ku hayso iyo waxa aad leedahay oo afka ka dhayso inay kala duwanaadaan ma dhacda adigoo rabo qof inaad u yeerto qofkina hortaada uu joogo qofka tusaalahan maxamed baa la yiraahdaa abdullaahi inaad ugu yeerto ma dhacda magac kale aad ugu yeerto ha way dhacdaa marka carabki iyo qalbigina waa ay kala duwanaadeen facalayhi waxa dhici karta adigoo isla salaad duhur tuko qalbigina ku haya salaad duhur inaad tukato inaad tiraado usalli farda salaati al-asr
afkayna ka tiraahdo wax dhici kara waay intaasoo idil markaa ku mashquuline niyadda maxalkeeda qalbiga waaye qalbigana waxaad ka sugaysaa sidaan ku soo marnay weesada oo kale qalbiga waxaad ka sugaysaa inaad salaad tukanayso iyo salaada waxay tahay shard waa rugniga koobaad waka ka labaad wal qiyaamu taagni way inaad saa ku tukato maca alqudrati laakiin waa qofkii awoodi kara qofaan awoodi karin istitaaca la yiraahdaa wal qiyaamu maca alqudra istitaacada qofkaan awoodi karin laakiin waajib kuma aha okay laakiin arrin faa'iideysta maanta waxay idin tari doontaa istitaacada ama awoodida waxa la awoodo shardu sixa miya mise waa shardu wujuub shardu sixa miya mise waa shardu wujuub okay haddaan fududeeyo waxaa yidhi taagni salaada in lagu tukado waa waajib istaag in lagu tukado waa waajib laakiin yay waajib ku tahay qofkii samayn karo awooda bay waajib ku tahay awoodida maxaa la yiraahdaa marka waa istitaaca halka ku hay maxaa la yiraahdaa istitaaca marka waa qofkii samayn kara awoodid hadii ka waran qofkii intuu is dhibo ma istaagi karo laakiin waa is dhibay wuu istaagay salaadina istaagu ku tukada asagoo dhibsanaya waliba salaadiisi ma ka ansaxaysaa mise ka ansaxi mayso way ka ansaxaysaa saxiix weeye salaada meesha way markaan ku dhahayo marka in istaag lagu tukado waa shardu wujuub wey istaagnida in lagu tukado waa shardu wujuub laakiin adigu inaad awoodi karto macnaha istitaacadii inaad la timaado shardu wujuub ee shardu sixa ma aha ma la fahmi shardu sixa iyo shardu wujuub waxay kala tahay sida hadda ku soo marnay oo kale shuruudu salaada shardu wujuub waxa weeye waa laga rabaa haddaad tukatidna macnaha inaad taagni ku tukato waa laga rabaa shardu sixana waxa weeye waxa la'aantiisa maba ansaxayaba kan la'aantii ma ansaxayo shayga la'aantiisa salaadi ka ansixi mayso haddii ka waran adigoo fadhi haddaa ku tukato adigoo awoodi kara inaad istaagtid salaadi ma ka ansaxaysaa waa may salaadi ma ka ansaxayso waa awoodi kartay salaadu waa waajib waa iska fariisatay wujuubkii baa ka tagtay salaadi ka ansixi mayso okay laakiin adigoon awoodi karin haddaad isdhibto oo aad istaagto salaadi ma ka ansaxaysaa way ka ansaxaysaa wax walba oo la yiraahdo awood baa loo shardiyaana sidaas oo kale wey dagaalka oo kale الجهاد مع شرط هو الاستطاعة إلا أودي كرو لكن استطاعة دي ما وحا مركا إيضا شرطي هدي أنا أودي كرينا نسلبو oo marka iyada qofkii uu jihaado ilaahay dartii u dagaalamo ma waxa la leeyahay dagaalkaagu waa baatil waa may waxay la mid tahay qofkii xanuunsanaa ee istaagi kari waayay salaad istaag ku tukan karin oo isdhibay oo istaagay sidaas marka waxay ku timaadaa ogow masalatu istitaaca waa mas'ala muhiim ah inaad ogaatid shardu wujuubka iyo shardu sixa istitaacadu ma waxa weeye shardu wujuub ama shardu sixa استطاعة marka waxay noqotay waa in istaag lagu tukado shardu sixa ma ah waa shardu wujuub waa garan alqiyaam ma'a alqudra waa garan midda labaad way ta saddexaadna waa maxay takbiiratu al-ihraam Allahu akbar in la yiraahdo salaadina Allahu akbar lagu galo Allahu akbar salaadu waxa lagu xirtaba waa Allahu akbar way waxa ka horeeyo oo hadal hadaad maanta dhan hadlayso salaad ma ku jirtid wali marka tiraahdo Allahu akbar baad salaad gash shardi rukniga afraad
قراءة الفاتحة فاتحة الله أخريوي. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. بسم الله الرحمن الرحيم وآية كمد آية كمد وي فاتحة محورها بسم الله الرحمن الرحيم وآية كمد معايا الخلافة كجر علماء الحدود ولا سكو خلاف سيء. بسم الله الرحمن الرحيم آية كمدها سورة الفاتحة مسماها وحلو الدليل شذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة حديث كيسوحوا إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. النبي قال سيدنا صلى الله عليه وسلم إنها أم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم نوامد كمذا آياتها سورة الفاتحة وحيابا لو دليل شذي كمتها. والركوع ركنك الشناد والركوع ركنك ركوع للي ماذا وي. والطمأنينة ركنك الشناد نوا محا إن لغو حصل الركوع دي الطمأنينة وركنك اللحاد ركنك التضبات الرفع والاعتدال إن لغا سوكر نقضو سمع الله لمن حمده ولصوله لنا استاغو انتاوي ركنك تضبات ركنك التضبات ويكانا ركنك السديدات والطمأنينة فيه وإن لغو حصله والجلوس محاكو حقي والسجود ركنك سقالات والسجود إلا سجوده والطمأنينة فيه إن لغو حصل السجود والجلوس بين السجدتين ركنك الطبنات بوها كهذا سواء آخرناه كان كوبي الطبنات والجلوس بين السجدتين لبدا سجود دحدوده إلا فريستو فدغانا والركني والطمأنينة فيه ركنك اللبي طبناتنا وإن لغو حصلو فدغا والجلوس الأخير ركنك السدحي طبناتنا وفدغا قدام بيا تحياتك الله فريسانوي ركنك السدحي طبنات وي وعادو فريسة التحياتك ركنك أفرادنا والتشهد فيه التحياتك إلا آخري والله لقوا التشهد التحياتك نحديثة وحي لا أخرين لها أيضا وركن القونية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لقوا صليه التحيات كاس نحديث التحيات كوي التحياتك قدام بيوي وصلاة دات كقبحيس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه النبي قال لقوا صليه فدق قدام بي فير سدح ركني وكلجي نقضي فدق والركني التحيات كينا داخل سوا الركني التحيات لله والصلوات إن تصدق واخرج إن داخل سوا الركني وحكى له الركني إن النبي كوصلص صلى الله عليه وسلم أنت مركا أركانتي وي ركنك لحي طبنات أنت واكشني طبنات وي لحي طبنات وحي والتسليمة الأولى السلام عليكم طهورة marka hore leedahay assalaamu calaykum ayadana waa waajib talabaad waajib ma uu ku leeyahay wadaadku midda koobaad inaad assalaamu calaykum tiraahdo rukniga 17aad waniyatul khuruuji min as-salaah salaad inaad ka baxayso inaad niyeysato niyadii salaada looga baxay inaad la timaado ruknigan 17aad waxaa weeye la isku raacsana madhabka shaafiiciyada dhexdiisa waa la isku khilaafsan yahay waniyatul khuruuji min as-salaah
وركنك تضبي طبنات إن للي ما دو إن لن يستو صلاة إن لقى بحاي معناه إن للي ما دو وركن يدنا بودات كلية أوكي محن كودنا مركان سيدا لنا هذا الكادي إبراهيم ركنك تضبي طبنات ونية الخروج من الصلاة إن لن يستو معناه إن للي ما دوية نيدي صلاة اللي بحاي هل كان وركنك تضبي طبنات بودات كيري حق مذهب كمرك لفيري ولا سو خلاف سيا مسألة من ركن با مسماها إن وحا صحيحة إن ليس ركن إهين ركن ماهن سيدا صحيحة وحي كم تيسوق ليس سننك وحانا قفك كقفلا مركا صلاة كبحايا السلام عليكم تقوليها يبقى كفلا سؤال إبراهيم أدان كجواب إبراهيم محويري هدي كورن قفك نيستو إنو صلاة كبحايا مدى اسمها مدى كهدلاي هذا هدو قفك نيستو صلاة إنو كبحايا صلاة كبحايا صلاة كبحايا أدان نيستو وابا كبحايا صلاتكم مجرت لكن مدان كهدلاي وحاوي وذاتكم كليه والركن اللي قاربو صلاة دي بعد دمينيسا وتحياتك بعد دميس التحياتك مركي بعد دميسي السلام عليكم بالله ما waxa laga rabaa ina intention la timaado ina salaada ka baxayso rukni maaha ma waxa laga rabaa inaad la timaado waa maya laga ma rabo inaad niyadi la timaado sida saxiixa markaan qaadano way rukniga u dambeeyay 18aad wadaadku wuxuu yiri wa tartiibul arkaan ala ma dhakarnaahu arkaanta in sidaas ay u kala horeeyaan loo kala hormariyo orderkaas ay u kala horeeyaan in loo kala hormariyo oo wadaadku uu soo sheegay meeqa rukni ba hadda haysataa marka oo saxiix ah 18 no waa ka diiday 17 laakiin waa 18 midka ay 18aad xaqu ka iimaanaya ana kuugu daraya qabsa marka wadaadku miyuu ku sheegay ragcadda labaad in loo istaago alqiyaam ila ragcad thaniya miyuu ku yiri kuma oran sooma rukniga 18aad marka wuxuu ku dhex jiraa markuu ku leeyahay wal julus bayna sajdatayn kadib ku xiga القيام إلى الركعة الثانية استاجلو ركعة اللبات والركن سجنة معناه وحو كل حجرة ركنك سدحي تمنات يا أفري تمنات لبي تمنات يا سدحي تمنات سوري 12 إلى 13 بكل حجرة وسننها صلاة السنوين كذا هرك أركانتي وكبح 18 ركني إن أدوش كقبتها لجاربا لأن هدي قفك أو اعتقاديو الرميو شيء ركني إنه يهي السنة ركننا شيء أو يهي وذا ده شابعيد وحكولين صلاة داد وكابرت مركز وإناد أكتهي وحي ركني أنا وإناد أكتهي ركني نمديس وإنا قرانيس وسننها قبل الدخول فيها شيئان وسننها صلاة السنوين كذا قبل الدخول فيها انت لقلين شيئان لبا شيء وهي الآذان آذانك يا والإقامة إقامة صلاة إن لو آذان يا إن لو أقيم والسنة سنة أنا والسنوين كهر رأيها صلاة انت لقلين كهر وبعد الدخول فيها شيئان صلاة مركا لقلا كدبنا ولبا الشيب وذاتك كليه التشهد الأول التحيات كهراء التحيات ككوبات ومحي صلاة مركا أيتهي سدح ركعة أما أفر ركعة وحيلة لبا التحيات التحيات كهراء مركا التحيات كاس إن للي ما دوا الصنو وفريسي جيسا أخرنت محل إلى هذا الآخرنا يو تشهدك
الصلاة على النبي انتبه سنوي والقنوت في الصبح سنة اللباد ومحي والقنوت في الصبح إلا قنوضة صلاة فجر كدحديدة إن لغو قنوضة أولا دعيو قنوت كواتغانان اللهم اهدنا فيمن هديت ويان اللهم اهدنا فيمن هديت دعاء إلا آخرية ويقنوتك وفي الوتر سيدو كلانا إلا قنوضة في الوتر وتر كدحديس قورما في النصف الثاني نص كالدنباء أو من شهر رمضان بشهر رمضان بشهر رمضان مركي شانية توبان قارتو إلا قنوضة السنة بوذاتكو كلية واركتين أرنتان دنباء هدان هورتا وتركا كوهر مرو وتركا إلا قنوضة مرمركا قار سندكو إذل ويبانانتاه شان iyo tobanka dambe in gooni ahaan loo qunuudo la daa'imo la wadana waa sunno sidaas aadna ku aragteen ficilkeena markaskan halkan bisha Ramadaan shan iyo tobanka dambe baa qunuudka la bilaabaa waxa ku soo haray salaada fajr wadaadku wuxuu yiri salaada fajr kadib waxaan jeedaa salaada fajr dhexdeeda in la qunuudo waaye هذين كميدنا عرق بومالينا صلاة فجر دحدود ولا قنوضة ما عرقتين ومايا سومالي ميلا كميدا ولا قنوضة سيد بدن وليبا قنوض كواتاغي سبب كايو قنوضة يعني وحاوي ومذهب كدرات ديوي أدلة بدن بانا ايو دليل شدان مركي سيدا ليهين وحاكم ذا أدلة أي دليشانيان حديث كبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح نبي صلاة الصبح وقنود الجري كوما هيسا وحديث سغن حديث أنس نبي قال له صلى الله عليه وسلم وحال ويدي أنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ما قنود الجري صلاة الصبح فقال نعم فقيل له أنس وحال ويدي قبل الركوع وبعده أو بعد الركوع مركز سيري بعد الركوع ركوع ذا كذب حديث كايسجنا علماء واحدة هو حديث السجن لماذا مركز الله يسكما هيستو لو ما ديدنا وحا وريرة منطقة haddii meel aan lagugu haysanin oon dagaal ka taagnayn haddaa maanta dhan ku rafanayso oo daliil u moodo waa wareer weeyaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu qunuuday khilaaf kama taagna shanta salaadood inuu qunuuday khilaaf kama taagna salaada fajr inuu qunuuday khilaaf kama taagna intaas oo dhan ma haysan maxaa khilaafku ka taagan yahay marka oo la isku haystaa يا وحاواي وليجيس مقنودي جري صلاة فجر هالكاس الله يسكو هايستا هدا فهم ويسيد ماشي الله يسكو هايستا مرول بأمانات كماشي هدا ذا فاهمين موجود بان نغنيسا مدحوين وماشي يسكو صوف عليه اوكي وحال قرب هنا تفهمتوا وحال الله يسكو هايستا مع الله يسكو هايستا وحال يسكو هيا النبي محمد انتو كدب مني صبح والبا صلاة فجر مقنودي جري halkaas la isku hayaa Anas ibn Malik waxa laga wariyaa xadiis kale way kii hore ma nabigu wuxuu yiri Anas wuxuu yiri qanata shahran bil buu nabigu qunuuday salaadaha dhan way yad'u ala qatil ashabihi bi'r mauna qala gaala oo asxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam dishay buu habaaray bil kaamila fa amma fi as-subh salada subax miya abu yiri Anas فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا كما زول إنه قنوض يهاه إلا وكدنت النبي هاي
xadiidka marka hadduu sugnaado meeshii la isku hayay way tahay Soomaa halkii lagu dagaalayay way mar walba ka hoos bixi meesha la isku hayo maxaa la isku haynay waxa la isku hayay qunuudka ilaa uu ka dhinta nabiga ma waday Anas muxuu ku yiri falam yazal yaqnutu kama zuudil qunuuday hatta faaraqa dunya waligiisu qunuuday xadiidkana marka la isku qabsaday ma sugan yahay mise ma sugna sida saxiixa xadiidkan ma sugna بعض أهل العلم وحنا حديثك وسجنيه هدو سجنا لها وحنا نقول لها فيصل كلا صار محل النزاعي ننكل الجويون نقول لها وحنا أركل هيدان مركعية إلا قنوض الصلاة والبفجر معايا النبي قال قنوض جري صلى الله عليه وسلم وحي جلس مركع من باب صلوا كما رأيتموني أصلي هل كاس جلسة مسألة أيدي كدر مركع أنا وحرب أنا صفي عن إذين فاتسيو صلاة التهجد كله إذا طبعاً كدم بلد كذين بدعتها إن إذا كنت ترى الربا وتقاضتان مع إذا تصيا صلاة دان وحلا يسوق بتي فيري وحيسكشف بهذا تنية أو قنوت صلاة تهجد وحيسكشف بهذا قنوت كان النبي محمد وقنوضي صوما تهجد كان النبي محمد واتكذي وحلا يسكوها يا لبدو ذا نبي قم الدائمي صحابته مدائمين بالبدو بالله يسكوها يا وقو وحانو حديثا آخرنا يو مدانا له تاكل حديثا توسكا ما بلبا ما مغشان وليين فأما في التهجد في العشر الأواخر من رمضان فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد حتى فارق الدنيا وليين مغشان ولو كان ضعيف بل البهاء هذا ما هيسان ومية ومع ذلك علماء كما حشودان منبر كي لا ساريين وحين تاغيين صلاه فجر ان لا قنوده وبدعو ايضا انتانو حديث لو ويوغو يا كسي بدن وليبا حديث كانوا يدين شيغين maxay leeyihiin salaada fajrka ninka isku qunuudo waa bidco weeye waa bidca halka waxay iska waafaqayaan marka masaladii aan ku sheegay wax badanna ku sheegay tahajjudka lagu leeyahay 10ka dambe kaliya ku gaariyo la tukanaya waa bidco sida kanba nabiga uu uga sugnayn daa'imida iyo istimraariyada war ma fahanteen soo waa ku celiya ma fahanteen maxamed hadhow yaana ka maqlo waa baxo waa soo tujiye ya ala ayati hal marka qunuudka sida way hadaa aragta marka nin qunuudaya madhabka buu ku socdaa salaada subax qof qunuudaya daaragt madhabku ku socdaa nacam wala qunuudaysa Allah ducada Allah akhrinaysa haday qunuudayaan laana salaadii ku dhex jirtaa ma ka goosanaysa adoo ku jira waa may laana qunuudka ku buri maayo salaada ku buri mayso laakiin istimraariyadiisa waxa la yiri waa bid'a فعليه سلف كنا واسكو خلافين إلى إيو مسألة هذا بدعادة كقارئ كليين حتى سلف كي باسكو سو خلاف هدي لقوه كان حتى مدان دنبانكو إير سلف كي اسكو خلاف الإمام أبو بكر الحازمي وحوليه واختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار على إثبات القنوت فيها علماء بدن كود وحي قبان بكليين لقنوضو بوداتك كلية إمام الترمذي رحمه الله سنن كيس وحكير هذا اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صحابة الرسول كم ذا باوحي قبين إن لقنوذ وغيرهم القنوت في صلاة الفجر ومع ذلك وذاددان وحي لسو تاقيهن معي صحابة الرسول كقيب كم ذا قبتي بالقلية إن لقنوذ كرو هذا وحي كلية إن لقنوذ بدعو وقو مسائلك wax ku dhisanayso waa inay doodaadu adag tahay oo aan lagu leexin karin laga hadaa daciif noqoto doodaadu ay adkayno saas la isay ka riixaya ala itihal qunuudka fajrka sahih ma ahan in la qunuudo sunnana ma in la daa'imo wa hay'atuha 15 khasla hay'adkeeduna waa 15 khaslo halkaas ku ekeynaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam